السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله walaalyaal ilaahay baa mahad iskale noo ogolaaday inaan hortiina soo fadhiisano walaalayaal. saan wada ogsoonahay ilaahay baa na abuuray, isagana u laabanaa walaalayaal, isaga ayaan u laabanaynaa walaalayaal. ilaahay waa khaaliqu kulli shay, isaga koonkan abuuray walaalayaal. wixii ka soo hara waa makhluuq weeyaan walaalayaal. ilaahay waa raasiqu kulli shay, isagaana arsaaqay walaalayaal. waxa ka soo hara waa marzuuqiin weeyaan. ilaahay haddana waa xaafid kulli shay, isagaana xifaadaya. hadday madow noqoto, hadday maalin noqoto, hadday habeen noqoto, haddaan hurudno, haddaan soconno, isagaana xifaadaya walaalayaal. waxa ka soo hara waa maxfuudiin. saan wada ogsoonahay ilaahay waa maalikulmulk, isagaa koonkan iyo waxa ku dhex jiraba isagaa maalik ah oo mulkiya walaalayaal. saan ogsoonahay ilaahay waa samad oo ma baahda weeyaan walaalayaal. ilaahay malaa'ig ma baahna, rasuul ma baahna, innagana ma baahna, cidna ma baahna, innagaa isagoo baahan walaalayaal. ilaahay waa samad oo ma baahda. ilaahay markuu koonkan abuuray u dhammaystiray. maasha allah, ilaahay koonkan markuu abuuray maasha allah, ilaaha weynida iyo sifaadkaas kale markuu koonkan sameynayey wuxuu ruux uga dhigay waa diin weeye walaalayaal. diinta walaalayaal haddii aan qaadanno waan ku badbaadaynaa adduun iyo aakhiraba, ama diinta haddii aan qaadan weyno adduun iyo aakhira walaalayaal waan khasaaraynaa. diintan waa ambiyadu ilaahay usoo dhiibtay, waa silsilad nebigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu soo khatimay. nebigu wuu dadaalay, diinta wuu ku dadaalay, fikirkiisii iyo dadaalkiisii wuxuu geliyey basharku sidee ilaahay u gartaan oo cadaab ay uga tagaan, cadaab ay uga badbaadaan, ay jannana ku mutaystaan. nebigu diintaa wuu ka shaqeeyey, fikirkiisii iyo juhdigiisii wuxuu geliyey waa diinta. ilaahay uu la garab qabtay, asxaab ayuu ilaahay ku soo saaray diinta iyo dadaalka uu nebi maxamed ka shaqeynayay. asxaabta maanta innaga diintiina soo gaarsiiyeen oo mayna iska fadhiisan, diintii mas-uuliyad bay iska saareen, diintii innagayna soo gaarsiiyeen walaaleenna. diinta innaga ayayna soo gaarsiiyeen, innagu xaggaa fadhinayna la soo gaarsiiyey diinta markaa dadaal iyo fikir bay u baahan tahay. dadkii maanta diinta wax u qaban lahaa ee dadaali lahana waa innaga. diinta inaan ka wada shaqeyno oo aan fadhiga iska saarno oon diinta u kacno mustacdiin insha allah. maasha allah waa siday sheegeen walaalayaasheen. waxaa weeye walaalayaal, dee ilaahay bayna abuuray, waxaan ku laabanana waa ilaahay. diintana waxaa weeye walaalayaal, waxaa weeye waa badbaadadeenna walaalayaal. adduunyadan gaaban inaan ku badbaadno diin baan u baahanay walaalayaal. waxaan u baahanay inaan ilaahay garanno, ilaahay aan caabudno walaalayaal. waxaa weeye adduunyadu dhammaanaysaa walaalayaal. waxaa weeye wax walbo caalamka saaran way baaba'ayaan ilaa ilaahay maahane. maadaama dee la baaba'ayo la tegayo yowmal qiyaamaha, meesha la isku xisaabinaya walaalayaal, meel aad u daran wey. halkaa waxaa weye meesha waxa lagu badbaadaya waxaa keliya waxaa weeye waa diin. ciddii laga helay diin dhammaystiran walaalayaal waxaa weye way badbaaday, ciddii laga waayana walaalayaal way khasaartay. nooluna aad buu maanta adduunyada culayskeeda iyo xanuunkeeda iyo cadaabteeda waxaa noolu maanta uma adkaysan karo, balle cadaabka aakhira ka daran wax walba walaalayaal. waxaa la doonayaa walaalayaal inaan fikirno, fikirkeena inaan toosinno. adduunyada waa dhammaatay, qiyaamihii waa dhow walaalayaal. caalamkii waa isdhex galay, meel loo socday meel laga socda lama garanaya walaalayaal. nin walbana waxaa weeye meeshuu taagan yahay waxaa la doonaya in ilahay ku caabudo, waayo goor la isbaabinaya ilahay baa ogba. waxaa weeye walaalayaal, dee in dib loo laabto dhalinyarada waxaa weeye saynu u aragno maaha noloshu waxaa weeye waa siinaan u arkin walaalayaal. sa noloshu aragno waxaa weeye inagu dee waxaan oranaa in dibadda aynu tagno, labisanno, waxaa weeye shukaansanno, magaalada laga garto, la barto baynu nolosha aragnaa. laakiin nolosha waxaa weeye walaalayaal waa inaan qur-aanka aynu baranno, xadiidka rasuulka sal slam aynu baranno, diinta aynu fahanno, koryeelkeeda mataqaanaan u istaagno oo aan ka shaqeyno walaalayaal. taasaa waa nolosha walaalayaal. wax walbana waxay ku laabanayaan meesha ka yimaadeen walaalayaal. waxaa weye ninkii shalay suuqa joogay wuxuu ku laabanaya meeshu ka yimid. cid walbana way dhimanaysaa, kullu nafsin daa'iqatulmowt. wax hadhaya ma jirto, naf hadhaysa oo ilaahay ka baxsanaysa ma jirto walaalayaal. naf walbana waxaa weeye geriba ku sugan tahay ilaa goortii mataqaanaa dhimanaysana ilaahay baa og. caawal wada dhimanaya la baabaa ilaahay baa og. bale annagu waxaa weeye waxaan caddaynaynaa walaalayaal, walaalkay maxamed deeq waa taqaanaan, walaalkay bashiirna waa taqaanaan.
anigana de waxaa waa la yaqaanaa waxaa weeye shalay wada lagu yaqaanay waddadiina ilaahay baa mataqaanaa gooyey waddo walba oo mataqaanaa ilaahay raalli ka ahayn way dhammaataa waddo walba ilaahay raalli ka ahayn way dhammaanaysaa waxaa weeye caalamka lagaa barto waxba kuma tarayso being famous caalamku inay ku bartaan waxba kuma tarayso walaal inaad tahriibto oo yurubta intaad tagto facebook kasoo gasho halkaa live waxba kuma tarayso bale waxaa weeye maanta waxaan u baahannahay walaalayaal waxaa weeye waa badbaado sidaynu ku badbaadnaa meesha taalo waxaan ku badbaadinaa waxaa weeye waa cabsida ilaahay garashada ilaahay oon garanno oon ogaanno inaan dhimanayno walaalayaal marka walaalayaal waxaa weeye waxaan ii sheeganaa waxaa weeye badbaadadu waa diinta diinta way badbaadada walaalayaal ciddii diinta heshana way badbaadday badbaadada waa garanaysaa macnaheeda badbaadada macnaheeda waa garanaysaa walaalayaal ciddii diinta heshay walaalayaal way badbaadday ciddii aan helin lamayna badbaadin hala ogaado marka walaalayaal waxaa weeye annagu waxaan idiin sheegaynaa walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad in waxaan doonaynaa inaad na asturtaan rasuulka sal muxuu leeyahay ninkii walaalkii astura isagana ilaahay baa asturay shalay waxaa weeye food steps wax dhaano raad xun baa shalay laga hayaa annaga waxaa weeye walba oo Soomaaliyeed meel buu joogo Yurubta ha joogo Mareykan ha joogo Afrikadan ha joogo baddana ha ka kalluunsado wuxuu doonaa ahaado waxaa weeye mas'uuliyad baa ka saaran cabashadannada waxaa weeye waxaan ka shalaynaynaa oo ilaahay hortiisa kaga shalaynaynaa walaalayaal waxaa weeye wax aan la imaanay oo aan lafahana la imaanay uu shaydaan noo horseeday baan maanta ka shalaynaynaa walaalayaal adduunyadu inaysaa noqonaysa maanaan ogeyn ilduufaa dhacay qof walba maanta ilaahay hortiisa ilaahayna ku caasinaya oo macsi ilaahay hortiisa ku jira oo waxaan ku samaynaya ilaahay hortiisa waxaa weeye isma garanayo qofkaas bal hadduu qofkaas garto waxaa uu ka shalaynaya walaalayaal marka walaalayaal waxaan doonaynaa inaad naasturtaan wixii naga dhacay ee qaladaad ku haysaan teleefanadiinna inaad naga tirtaan ilaahay ha idin asturo waxaa weeye idinkana ilaahay mataqaanaa meel fiican ilahay waxaad ka siiyo noo gaarsiiya fariintan meel walbaad caalamka joogtaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay khaatimada khayr nooga qanto dhammaantiinba maanta oo iid ah waxaan soo fadhiisanay inaan soo gudbinno maxaa heeday cabashadeedaas walaalayaal rabadaantii waan soo soonnay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay soonkiina naga aqbalo oo ajirkiisa na siiyo walaalayaal insha allahu tacaala maanta way ciidanna waxaan leenahay ciid mubaarak meel kastoo aad joogtaan dunida daafaheeda walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan igu celinaynaa inaadna asturtaan oo siduu ilaahay idinkana noo asturo walaalayaal wixii aad naga hayseen ee xumaa waan ognahay inuu fal xun ahaa ee ilaahaygi jalla jalaaluhu na soo waafajiyey khayrkaas ayaan u mahad celinaynaa idinkana waxaan naga baryaynaa inaad wixii aad naga haysiin ugu yaraanka ugu yar video yar ahaado inaad naga dhigidgelisiin walaalayaal insha allahu tacaala qofkii uu soo gaadho messagekan ama videogan waxaan ka rajaynaynaa inuu dhilidgareeyo oo khayrkayga uu faafiyo insha allahu tacaala khayrkaas waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda muslimiinta ee Soomaalida ah waxaan u sheegaynaa walaalayaal adduunyadan way dhammaanaysaa wixii kor yaalla ma garanaysaa hees la dhigaysaa way dhammaanaysaa fanaankuna uu ka xanuunsanaya uu ka dhimanaya waxa baaqiga waxa weeye waa hadalka ilaahay allahu tacaala ya qara rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wixii kale oo dhan waxa weeye walaalayaal waxa weeye waa baadil wixii ilaahay ka soo waa baadil marka waxaan leenahay walaalayaal macsida ha laga leexdo macsida laga leexdo walaalayaal maxaa weeye isha kibirka laga leexdo qofka bini'aadamka muslimka ma wanaagsan inuu kibro ma wanaagsan inuu iska dayo gaalku iskuma dayo inuu muslim noqdo laakiin muslimku wuxuu isku dayo inuu gaal noqdo marka waxaa weeye farqiga noo dhaxwayn la gartaa walaalayaal waxaa weeye hees iyo fanaan iyo waxa ku jira fanaan waxba ma tarayaan hal mid baan ku daraya anigu hal mid ayaan ku darayaa mid aan ku daray waxa weeyaan xanuunkan la sheegay hadda coronavirus ummadda muslimka ah qalbigu ka galay walaalayaal waxaa la yidhaha haddii uu jasadka nagaga dhici lahaa ama waan ku dhiman lahayn ama waan ka caafimaadi lahayn lianna laakiin wuxuu nagaga dhaca waa qalbiga weeyaan qalbiga maanta ka ugu yar ee 2 jirka ilaa odayga 9 jirka ah wuxuu leeyahay waa coronavirus waa dacwad weeyaan waayo waxay sameeyeen social media Facebook YouTube Twitter meel kasta ka faafiyeen gaaladu waxa la yiraahdaa hadduu Afrika ku dhici lahaa waa inagu dad madow baan nahay waxaan qof aan aragnaa hadduu ku dhici lahaa Afrika lama sii bumbumiyeen lianna dadkan cadaanka waxay buufinayaan u baafinayaan dadka muslimiinta qalbigooda inay hantiyaan waayo haddii aan ku dhiman lahayn jihaad baan nahay hadduu jidka kaga dhici lahaa ama aan ku dhiman lahayn ama aan ku badbaadi lahayn soma laakiin waxaa fiicnaan lahayd intuu qalbigana coronavirus degayo الله ما إنه الله على ميز أدكتو أو يران هدي كأوير لا كأوين قلبك الله كديتو قف توجا مجرين قف معصمين مجرين قف هاسي مجرين قف حصمين مجرين لكن حنون كوا حكوا يا الله جل جلاله الله لقى عبصده حنون قري لا ما لقى ما شاء الله مركا وصور ولا الذين وسدا يشجعين cabsi waxa uu sugnaatay waa khaaliqa ilaahay jalla jalaalu cabsi isaga uu sugnaatay inaan ka cabsano isaga ayaa la doonayaa makhluuq inaan ka cabsano nama doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh